ganacsiga iyo isticmaalka qaadka ayaa si weyn u saameeyay nolosha bulshada iyo waliba dhaqaalaha Soomaaliland. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa VOA-da u sheegay in qaadkan uu dhibaato ba'an ku hayo Soomaaliland uuna hadda raadinayo xalkiisa. haddaba qaadkan oo sidoo kale ay dad badani ku tiirsan yihiin door noocee ah ayuu Soomaaliland ku leeyahay. warbixintan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA-da Barqad Kaariye. waa dhawaaqa inta badan yaqaanaan dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka Soomaaliland oo waqtiyo tiro badan oo kala duwan maalintii maqla. waa afgarashada in jaadku soo galay magaalada taasoo keentay safaf dadku ay u galaan sidii qof waliba u qaadan lahaa. inkastoo marka qaadku soo dhaco ay xidhmaan jidadku magaaladana meelo badan cidhiidhi ay noqoto, haddana waqtiga qof waliba qaato waxay jidadku ku dambeeyaan sidan, iyadoo inta qaysho dadku ay jilibka laabaan. inkastoo sicir barar baahsan Soomaaliland ka jiro, haddana madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waraysi aan la yeeshay toddobaadkan oo dhinacyo kala duwan khuseeyay waxa uu kaga hadlay sicir bararka iyo doorka qaadku ku leeyahay. marka dakhli lacag adag inama soo gasho, waxayna soo gasho oo waxayna ka yimaada dadka dibadda jooga reerahooda ay soo diraan. doolarkii aynu soo galayna waxaanu ka dhignay faakaysi inaan ku cuno. faakaysi waa maxay? lacagtii intii soo gasho waxa ku baxdaa qaadka waa faakaysi. marka qof waliba wuxuu u baahan yahay in la dirso oo horta naftiisa ka bilaabana wax soo faakaysiga aanu yarayno inuu dhexda xidhanno. annagu qorshahaasaan ku jirnaa, waana la isugu tegey business iyo aqoon-yahan iyo xukuumaddii. insha allah maalmaha soo socdaanu keeni doonaa xal wixii ay nala noqoto. haddaba qaadka oo qiyaastii sida la sheegay in ku siman 600 ilaa 700 oo milyan oo dollar sanadkii Soomaaliland kaga baxdo ma yahay mid saameyn muuqato kula sicir bararka iyo hoos u dhaca dhaqaalaha haddii la yiraahdo sidee bay saameyn gaar u yeelan kartaa? runtii isagoo ah arrin faakaysi ah oo qofku lacagtu haysan lahaa ee wax kale faa'iido wadanka uu ku qaban lahaa dib ku isticmaalay oo lacagtaasi waa lacag inaga baxaysa si kuwa kale ba inaga baxayaan dib inaga soo noqon ilaano wax walo aan iibsanaa dibadda ka keensanaa ma sameysano. ganacsatada qaadka iyo qaybo badan oo kamid ah bulshada ayaa iyaguna dareenkaasi la qaba madaxweynaha Soomaaliland. in badan ayaan iibinayay sixir bararka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka hadlay qaadku lambar 1 waa ka kow. bariga hore qaadka waxaan ku iibin jirnay cash Soomaaliland, maantana qaadka waxa lagu doonayaa dollar. way nagu diideen ganacsatada qaadka soo dejisaa ee keenta waxay nagu diideen in aan dollar u goyno ayay doonayaan. kaashka waa la nagu diiday. habeenkii kaashka waan la meeraysanaa, suuqaan tagnaa, dib baan u soo bedelnaa oo dollar ka dhignaa. hase haatee waxaa jira qaybo kale oo bulshada ka mid ah oo qabta aragti tan ka duwan, waxaanay warkaan in nolosha inta badan dadka danyarta ay si toos ah iyo si dadbanba ay uga dheefaan qaadka, waxaana tallaabo laga qaado qaadka ay ku xidhan shuruud. madaxweyne Muuse Biixi hadduu dadka shaqo siinayo dee qaba joojiyaba. sidee la iskula heli karaa dawada iyo xalka sicir bararka iyo sidoo kale jihaynta dadka noloshooda ku tiirsan tahay qaadka? dadka bedilkiisa iyo sidii loo qiimeeyay in horta dawladdu ka fikirto impacted ku yeelanayo loo eego lacagta adag ee aynu doonayno ee inagala baxayo. imika tusaale ahaan go'aamadii la gaadho waxa ka mid ah in bir lagu soo iibsado. birku iibsashada lagu soo iibsanayo birtidee inaad milhin wada kale problem la mid ah kee kala mid abuur kartaa waa in laga eega birta xaqeeda naga soo galayso waa in iyadana la eega oo marka la hadlaysid qoladii aad ka soo iibsanaysid aad oranaysid waliba lacagtiina aan maxay hayday aan ku iibsado halka lacagtooda ay kaaga imanayso halkay tahay. haddii taasi in jirin oo lacagta soo galaysa ee birtii iyo lacagta ka baxaysa ku soo iibsanaysa ay isla kaan weydo idana problem kale ay keen doontaa iyo mushkilad kale keen doontaa. hase haatee bulshada qaybo kale oo ka mid ah ayaa aaminsan in xalku aanu ku jirin oo keliya halka laga raadinayo ee qaadku ka mid yahay. inta la keeno baa nagu filan naga intaan subana koreena kani ma aquutal daruuride muqaddaraad dalina laakiin halka qaadka looga fikiro raashiga looga fikiro. Barqad Maxamuud Kaariye, qubanaha VOA, Hargeysa.